salaamullaahi saaxiibayaal meel walba aad dunida ka joogtaan caawa waxaan idin wadaa barnaamijka caanaha dadweynaha iyo dhammaan geyga Soomaaliya waa hubaal filimka inaad magaciisa maqashay ama aad waqtigii aad yarayd aad daawatay waa filimka Tom and Jerry kaliya waxaan isku dayaynaa inaan soo gudbino taariikhdii soo kooban sababta loo aasaasay cidda aasaastay shirkadda soo saartay cidda qortay iyo wax la xiriira uun aasaaskiisa Tom and Jerry waa filim kartoon Amerikaan ah soo baxay 1940kii waxa soo saaray ama fikradda lahaa laba nin oo lagu kala magacaabi jiray Joseph Barber iyo William Hanna shirkadda filimka soo saartay ayaa lagu magacaabay Metro Goldwyn Mayer filimkaas oo noqday waqtigiisii filimka ugu caansan ee ay shirkaddaasi soo saartay filimkan ayaa had iyo jeer soo bandhigay xifaaltanka ka dhaxeeya jiirka iyo bisad ama Tom and Jerry kuwaas oo mid waliba isku dayay inuu ku guuleysto badiyaaba waxaanu aragnaa jiirka oo guuleysta iyo bisad oo guuldareysa halka nolosha caadiga ay bisadu mar walba guuleysto kana adkaato kana takhalusto jiirka bisad waa mid aan faraxsanayn had iyo jeer oo aan weligeed ka salgaareen raacdada jiirka xariifka ah mararka qaar filimkan Tom and Jerry waxa ku weeliyay eegaas oo had iyo jeer aynu aragno isagoo u hiirinaya jiirka oo khiyaameynaya khiyaanadaas oo sababta in ay bisadu kala kulantay eega ciqaab adag halkaas oo ay jiirka ujeedadiisa ugu weyn tahay inuu guriga nidaamka ka lumiyo kaasoo uu jecel yahay inuu wax kasta ka dhex sameeyo halkaas oo hamiga ay bisadu ku tahay laf dhuun gashay kana hortaagan tahay inuu u rumoobo mararka qaar jiirku waxa uu bisada dhex dhigaa hadimooyin waaweyn oo aanay ka soo kobanayn dadka qaar ayaa ku tilmaama filimkani inuu yahay filim xaqiiqa kaasoo laga matelay dhacdooyin u dhaca si xaqiiqa halkaas oo ay leeyihiin jiirku waxa uu taagan yahay yuhuud halka bisadu ay u taagan tahay muslim sidoo kale eeygu uu taagan yahay kristanka had iyo jeer waxaynu aragnaa eeyga oo u hiirinaya jiir kana hiirinaya bisada sidoo kale kristanku waxay u hiiliyaan yuhuud kana hiiliyaan muslimiinta waxaynu ognahay dhibaatada uu geystay Jerry inay mar walba ka badan tahay dhibaatada loo geeyo hase ahaatee Jerry had iyo jeer waxa uu helaahay uga yimaada dhinaca eeyga ama xayawaanka kula jira markaas dhanka kale in la iskaga matalo jiirka iyo yuhuud ayaa ah jiirku inuu aad uga yar yahay labada xayawaan ee kala cabir ah haddana uu ka tababar iyo khibrad fiican yahay labadooda kale taxanahan waxaa had iyo jeer dhaqaajiya ficil iyo kaftan muuqaal ah sidoo kale filimkan waxaa ka qayb qaatay laba qoraal oo lagu kala magacaabo Fred Comby and Kelly Tarfin filimka Tom and Jerry ayaa la soo gabagabeeyay March 13 1994 duubistiisa 28 sano kahor waxay noqotay xilqadii ugu dambeysay ee la duubay Tom and Jerry